السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada khiyaarta. waxaa ku soo dhawaataan casharadeenii imtixaanaha inoo socday ee barashada luqadda Java. maanta waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo multi-dimensional array. multi-dimensional array waxaa loo isticmaalaa waa hal array oo array kale la dhexgeliyay. waxaan soo baranay maalin hal array baan baranay sida loo sameeyo multi-dimensional array ma adka. waxaad sameynaysaa marka hore waxaad sheegaysaa data type-ka. let's say waxaan qaadanayna integer. okay waxaan naga aad okay waxaan naga aad halkaas. okay let's say marka ano click waxaan dhahaynaa marka ugu horeysa data type kan sheegaynaa int, kadibna magac wala baxaynaa matrix ka soo qaad, kadibna san hal array bay ahayd multi-dimensional array waa laba array oo saas isdul saaran equals kaas waxaan leenahay new int kaas waxaan leenahay multi-dimensional array waana labada u sheegno. this means waxaa loola jeedaa meeshaan haddadan aan u jeedno waxay noo tahay hadda fiirino halkan waxaan gelin karnaa size-kan u baahannahay. haddaan dhahan waxaan rabnaa laba array midkiiba waxaa kusii dhex jira saddex array waa multi-dimensional array waay. san waa okay, san waa ku declaration waa ku samayn kartaa Java oo markaa multi-dimensional array sameynaysid, laakiin Java waxaan la ogolayn in aad macnaha kan ka boodid oo aad hal xaba kaliya sheegtid lama ogola. sababta waxay ka hor imaanaysaa sharciga oo ah waa adoo yiri waxaan haystaa kiish ma haysto, markaasaan kiishash badan baan rabaa inaan kiish aan haysan inaan ku dhex rido ma shaqeynayso. marka soo qaad laba kiish haysana kaas waxaan rabnaa saddex kiish inaan ku dhex ridno. haddaan doono kan waa ka boodi karnaa, Java way ogolaanaysaa. waa laba kiish empty haysataa, halkaana waxaad doontaa ku ridi kartaa. saasaa loo declare gareeyaa. haddaan hadda multi-dimensional array aan si fiican u declare gareeyo waxaan dhihi karnaa sanaan dhihi karnaa brackets-kan wuxuu sheegayaa in ay tahay macnaha waa arrayga koowaad waay, arrayga macnaha weyn wax walba gelayaan. markaas array kale sii dhexgelin karnaa isla isoo kale haddana furaynaa. halkan marka waxaan ku dhex ridi karnaa waxaan doono. let's say waxaan gelinaynaa 1 2 3 4 intaasaan gelinay. markaas haddana array kale sii dhexgelinaa iyadana si ay ku qabato. waxaan leenahay iyadana kaba soo qaadsaan marada iska gelgeli comma inta noo dhexgeli comma. okay mid kale haddana sii dhexgelin kartaa oo aad leedahay saas kaba soo qaad 5 eber 7 8 oo comma point lama ogolaya arrayga waa in comma la dhexgeliyo waaye. okay okay comma lena. okay hadda maxaan sameeyay waxaan haystaa saa ujeedaan bracketkan bracketka koowaad aad ujeedaan halkan bracketkan waa bracketka koowaad ee weynaa waay. kadibna waxaa ku dhex jira hal array, laba array iyo saddex array. that means waa multi-dimensional array ayaan saa ku samaysanay. marka sida Java loo sameeyo multi-dimensional array sidan waaye. marka casharadeenna dambe noogu imaan doona annaga oo ka sheekeynayna saan u isticmaali doono, laakiin waxaa muhiim inaad fahantaan arraygan soo baranay asagoo multi-dimensional asagana in la isticmaali karo. waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wajazaakum allahu khayr. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.